anigu runtii waxaan ogaaday in ciidamadu aysan fayl lahayn markii aan tagay wasaaradda gaashaandhigga markii aan iri taliyaashii ciidanka hogaaminaya feelashin ii keena aysan feelo lahayn waan iri askarta ka shaqeysa xafiiska personaalka ama xafiiska ciidanka taliyahii joogay feelkaaga ii keen uusan feel lahayn yaa waxay caddaatay in loo baahan yahay dib u habeyntan iyo reformkan oo degdeg in loo sameeyo haddana aad sheegaysaan tirada ciidanka in uu ku dhow yahay dhammaad tirakoobkooda oo electronic ah iyo galkan marka waxa yaab leh haddii aan hore loo haynin gal uu ku yaallo qofka sawirkiisa magaciisa oo buuxa garaadihiisa meesha uu joogo haddii looga baahan yahay inuu howlgalo dekreetada uu haysto mid sax ah miyaa ma la ganaaxay shaqo wanaagsan ma qabtay oo runtii oo abaalmarin ah dee qof aan fayl lahayn see loo odhan karaa ciidan uu ka tirsan yahay ya runtii waxaad gaarteen guulo runtii taariikhi ah yaa gaarteen waana meesha ay ka bilaabanayso dowladnimadeenna iyo la dagaalanka musuqmaasuqa maxaa yeelay see mushaar loo bixiyaa haddii ciidanka aan la garanayn haddana waa ku mahadsan yihiin saraakiishii nagala qayb gashay iyo askartiiba inay oggolaadaan in la maro sida saxa ah oo askariga dhabta ah iyo meesha uu joogo iyo garaadihiisa in la hayo si aan u ogaanno yaa shaqayn kara oo diyaar ah iyo yaa howlgab ah iyo yaa maxaan ku raahdaa curyaan ah oo u baahan in maaragtay la daryeelo marka runtii waa horumar weyn oo la gaaray insha allahna aan xoojinno ha la adkeeyo oo ha la ilaaliyo systemka ha la ilaaliyo maxaa yeelay systemkii la dhisay haddii la dayaco oo waxa laabaan wixii la qabtay waxa weeye waa hal bacad lagu lisay marka in la ilaaliyo oo tiim adag loo sameeyo oo ka shaqeeya tan labaadna saa sheegteen dee waxaa noo bilaawday e-government electronic government oo qofka markuu gacanta saaro la og yahay xaaladda uu ku jiro iyo meesha uu joogo iyo hadduu fasax qabo saa sheegteen hadduu meel aadayo inuu fasax qabo hadduusan fasax qabin hadduu dee meelahaas ka socdo ma nin soo goostayba ya mise waa nin shaqo u socda marka runtii waa horumar aan gaarnay aan xoojinno horumarka